ين dad yowgii carabta ahaa run ahaantii waxaana deganaa carab yuhuud suudaani cafar soomaalida haddii ay noqoto qabiilooyinka la saarayo dee isaaq gadabursi ciise waa magaalo ay soo maamulayeen taariikh dheer carab baa soo maamulayay ilaa sayid maxamed albaar oo uu ka qaadayo xaaji sharmaarke cali saalax wax Soomaaliya oo soo maamulay oo soo maray taariikhdana waxa uu ahaa xaaji sharmaarke cali saalax oo habar yoonisa oo Muuse Caraa garxajisa ninka kale soo raacana wuxuu ahaa Abubakar Ibrahim Shiham Abubakar Basha oo awowgii labaad u noqonaya Al Arif Burhan oo geeriyooday shalay sanadkan 2025 dayaaqadeedii bishii December 15keegii kolka waa awowgii labaad ayuu u noqonayaa Abubakar Ibrahim Shiham oo isna soo maamulay oo Abubakar Ibrahim Shiham wuxuu dhalay Burhan Beyna wuxuu dhalay Ali Arif wuxuu dhalay Arif uu dhalay Arifna yaa dhalay Ali buu dhalay aligan imika kolka Ali Arif waxa weeyaan waqtigii gumaystii Djibouti madaxweynihii kolka waqtiga dheer ee Djibouti gumaysiga waa taariikhda inaynu kala iyada ma doonano ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo runtii kolka waxa soo maamulay oo taariikhda inta hore dhan cabraba maamulisay xaaji sharmaarke cali saalax iyo Abubakar Ibrahim Shiham oo ka dambeeyay xaaji sharmaarke runtii sharmaarke wuxuu maamulayay 1842 ilaa xilligii uu ka geeriyoonayay 1861 bishii June laakiin haddaba sayda garanay inay magaalo Cosmopolitan oo la wada degan yahay ahayd qarnigii hore iyo imika yaase deegaanka ku xeeran magaalo lahaanshaheega yaa sheegan kara magaalo deegaankeega waxa sheegan kara ciidda ilaahay deegaanka ku xeersan ee biyaha iyo baadka ba keentay ilaa xaabada kolka reerka ciise imisa ka degan xeebta ee buugaagta archiveska waayo wax kasta waxaynu gelanaa wax la yiraahdo archives way dhaaftay xilligii anaale iyo aynka iyo batajada waxa waa in wax la akhriyaa qoraal la soo qaataa kolka British Archiveska waxa ku qoran xeebta waxa deganaa walaaldoon iyo Furlabe iyo Horone ayaa waa 3 jilib ayaa halkan degan kolka kaga soo bilow loo yacdo halka Bariisle Toqoshi halka ka soo gal Waraabood caashacada halka ka gal sidaasaynu soconay eelgaal halka ka gal geerisa lughaya oo kolkaasi ay Saad Muuse Habara wala ay halka deegaanka ay ku wadaagaan oo wadaaga yihiin dhinacan kale kolka ciise waa soconaya oo ilaa banka Maandaha oo dheer cid ku taraxda ma jirto saddex geeska kolka geestir laga gaarayo dhinacan libaaxley hoosteedana ay joogaan halkan kalena xariirad runtii kolka ciddii tiraahda de anigu de cid garan maayo kolka in loo sheegto oo la yiraahdo ciise muu degin
dee waa dad aan taariikhdana waxba ka aqoon juqraafigana ku aqoon haddii dowladduna sidaa u dhaqmaso dee waxa weeya inay archiveski ay dhaxashay inay ka daba tagto taasi isaa gobolkan city archiveska ku jira waxaa degan waa reer Guulane Harla reer Muuse Odax Gob Uurweyne iyo Wardiiq waxa weeyaan waa 1 2 3 4 5 6 lixna waa halkan runantii saddexna waxa weeyaan oo yaronka qudadiisu dee wuxuu tagaa waxaan jeedaa Taqshi waa yaron gaada galaan horone furlaba taasi waa taa haddaba intaasi ayaynu taa kaga gudbanaa run ahaantii waxaan u gudbayaa heshiisyadii 1884 la galay iyo sidii loo kala galay heshiisyada waxaa ka horeeyey laba heshiis oo hore 1884 waxaa ka horeeyey laba heshiis oo hore midi waxa weeye waa heshiiskii 1827 ay beesha Habarawal bishii February la gashay boqortooyada Ingiriiska markii ay isku dhaceen beesha Habarawal iyo boqortooyada Ingiriiska markabkii Mary Ann ee 1825 ay weerartay berbera ku soo xidhay ee ay weerartay beesha Habarawal waxay boqortooyada Ingiriisku ay cunaqabatayn saartay berbera iyo Bulxaar deegaanadii ay ka talinaysay beesha Habarawal cunaqabatayntaana waxaa lagu hayay 2 sanadood bishii January 10keegina Ingiriisku wuxuu ku soo qaaday imaaradii berbera weerar maraakiib xagga badda ah oo ay la socdaan 500 oo ciidamada badda Navy SEALku kolkaas saddexda markab waxaa ka mid ahaa Amherst ka labaadna Bandara ayaa la oranayay ka kale saddexaadna waa Tamar baa